السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سoo noqdana sana xiiso badan maanta waxaan wadaa cashir conversation aad u xiiso badan kaas oo aan rajeynaya inuu kaa caawin doono xilliyada booqashaalka dhakhtarka aad ku guda jirto haddii lacala ay dhacdo inaad la kulanto qof ajnabi ah oona micnaha meeshaasna aan ka rajeynaya inaadan doonin inay cidna kaaga turjubaanto maanta conversation wuxuu ku saabsan yahay a visit to the doctor's office yacni kulan ama booqasho aad ku booqatay ama gabar ay ku booqatay dhakhtarka doctorka qabatay bal xanuunkeedana aragna marka iyo waxyaabaha ay ka hadli doonto so situationka marxaladii waxay tahay Aasha has not been feeling well lately Aasha gabar yiraahdo waxaa jirto inay micnaha aynan dareemeynin yani caadi ma aha way xanuunsatay in muddo ah maanta marka today she goes to see her doctor for a physical checkup maanta marka waxay aaday dhakhtarkeeda inay physical checkup soo samayso physical checkup waxaa la yiraahdaa yani physically muuqaal ahaan ama kor ina laga socdo xanuunkeeda ayadoona la marinaynin macnaha blood test la marinayn macnaha scan ultrasound all those things physical checkup macnaha in xanuunada sheegato si ay daaweyn u soo hesho ama ay iskala tacaasho xanuunka haayo then Aasha markay soo gashay isbitaalka lamaysan kulmin dhakhtarka waxaa la yiraahdaa magaciisa Dr. Clark laba eray ku jirta Clark meeshana Clark midna waa CLARK midna waxa waaye CLERK midna E waaye midna A waaye so waxaad ku kala saartaa tan Clark waa name tan Clark waxaa la yiraahdaa qofka meesha jooga marka iyada ah lambarka jaro ee macnaha gacan yaraha ah dhaqaatiirta kama tirsan laakiin waa Clark karani si loo yaqaano so Aasha hadalkay ku bilowday waxay tiri good morning subax wanaagsan way salaantay ay salaamaysaa Clark Aasha marka naaska gabadha la yiraahdo naaska way la joogtaa aan aragna marka waxay tiri I have an appointment waxaan leeyahay balan with Dr. Clark at 8:30 waxaan balan la leeyahay maanta Dr. Clark marka ay tahay saacada 8:30 daqiiqo ah then Clark muxuu sameeyay marka ninka Clark ah let me pull your record aan soo saaro recordkaaga recordka waxa la yiraahdaa liiska meesha qofka ugu jiro magaciisa ugu diiwaan gashan yahay lambarkiisa iyo wixii dhan in the meantime inta laga gaarayo yiri hadda muddo kooban gudaheed please sign in and have a seat fadlan ii saxiix ina fariiso yiri so recordka warqadda marka inaad imaaday waa inaad saxiixdo si habsan oosan kuugu dhicin then nurse-ka warqadda loo gudbiyay maxay tiri marka Aasha Xuseen macnaha magaceeda ugu dhawaaqday ila warqadii haysataa then waxay tiri here I am here madii waxay tiri here waa kana waa halkan waa kana macnaha aniga waa camal then naaska waxay tiri follow me to room A please fadlan ii soo raac room A qolka A ii soo raacay then naaska waxay tiri idoo hadalka sii wado here we are already way imaadeenba qolka way soo socdeen qolka room A la imaadeen room A maxaa laga sameynayaa waa inay ka qaado case history ama history taking waxa la dhakhtarka waa inuu wareysanayo nurse-ka ama qofka kalkaaliyaha uu wareysanaya asoo qorayo xanuunada qofkan uu dareemayo si uu dhakhtarku ugu gudbiyo dhakhtarka ilaa waqti dheer maayo wax ku wareysto marka inta badan caalamka waxa laga yaqaanaa wax oo case history yani in laga qaado qofka macnaha case-kiisa la qoro then what are your reasons for seeing Dr. Clark today maxaa way tiri sababaha ama asbaabaha maanta aad rabto inaad ula kulanto Dr. Clark maanta then Aasha waxay tiri well lately I have been feeling tired gadaalkan dambe waxaan dareemi jiray tiri tired ereyga tired waa daal and occasionally occasionally waxay tiri I have had a really bad headache waxa aan qabay tiri madax xanuun aad u ba'an and upset stomach iyo caloosha oo khasanto ama nooc kale ah on top of that waxa intaas dheer ay tiri I have had this persistent cough waxaan leeyahay tiri qufac isdaba joogta ah ama goos for the last 2 weeks laba usbuuc la soo dhaafay then nurse-ka wuxuu ugu jawaabay when did you start having these symptoms goorma ayaad isku aragtay tiri inaad isku aragto ama inaad dareento astaamahan so symptoms waxa waaye qofka xanuunka markuu dareemayo signs and symptoms wala astaamo iyo wax la xiriiro then Aasha waxay tiri I started feeling tired about 2 months ago xagga daalka haddaan kaaga hadli tiri waxay ugu bilaabatay 2 bilood ka hor kadib a little bit later inta ka dambeeyay tiri after that the headache came kadibna madax xanuunka ay yimaadeen I got the upset stomach long before feeling tired macnaha upset stomach ama calooshan ay khasan ama aan ka dareemayo wajaca wax ma dheeranay tiri yani aad ugu maysan fogeynay tiri inta xilliga daalkan dareemay agagaarkeeda
then the nurse waxay ku jawaabtay are you taking any medication ma waxaad qaadanaysaa wax dawooyin ah medication waa dawooyin then Caasho waxay tiri only my vitamins waxaan qaadanayaa tiri vitaminaad aniga la qoray bas ah then the nurse waxay ku tiri what vitamins are you taking vitamin noocee ayaad qaadanaysaa then Caasho waxay tiri I am taking a multivitamin tablet waxaan qaadanayaa tiri multivitamin tablet kaniin ah multivitamin ama vitaminaad isku jiro so ereyga multi haddaa maqasho waa macnaha waa badan ama many waay and iyo extra vitamin C oo dheeraad ah maalin walbo okay ama vitamin C oo isi dheeri ah multivitamin kan waa ka gooni waa vitaminaad isku jiro multivitamin kan ayaa ama vitamin C ga dheeri isi ah the nurse wuxuu ugu jawaabay okay let me take your vital signs waxaa la yidhahaa inta qofka nurse-ka maanta oon dhakhtarka ku gudbinin wuxuu ka qaadayaa blood pressure-kaada iyo dhiiggaagu cabiraya kor iyo hoos wuxuu kaa fiirinayaa macnaha inaad qandho leedahay xeerkulkaagu baaraya kadib marka intaas loo sameeyey Caasho waxay tiri how am I doing sideen ahay xaaladayda saad u aragtay then nurse-ka wuxuu yidhi everything is good kalkaal sida ugu jawaabtay waxay tiri everything is good wax walba waa ay fiican yihiin laakiin waxay u raacasay normal blood pressure-kaaga waxay tiri waa normal and no high temperature xeerkul ee high ah ama sareeyo ma lihid macnaha qandho kuma saarno please wait here for a minute fadlan igu sugay tiri halkan hal daqiiqo camal Dr. Clark will be with you in a moment Dr. Clark ayaa wuxuu kula joogayaa muddo kooban kadib then Caasho maxay tiri thank you taa mahadsan tahay dhakhtarkaa soo galay muxuu yidhi good morning Caasha good morning subax wanaagsan Caasho kadib maxay isku hadalka ka sii socday aragna the next case waxay tiri good morning doctor subax wanaagsan Dictore then doctorka wuxuu yidhi I see here that you started feeling tired 2 months ago halkan waxaa iga muuqato yidhi in aad xanuun dareentay 2 bilood ka hore and then you started having bad headache I see here that you started feeling tired 2 months ago waxaan ka arkayo warqadda ku xusan in aad bilowday ama uu kugu bilowday ama adiga aad dareentay inaad daal in badan dareento 2 bilood ka hor waxaa kaloo sii dheeri u yidhi meeshan that you started having bad headache in aad macnaha kadib ay kugu bilaabatay madax xanuun ba'an you also have an upset stomach and a persistent cough waxaa kaloo leedahay yidhi caloosha oo ku khasan iyo persistent cough qufac joogta ama isdaba joog ah did you run a fever too wax qandha miyaad dareentay yidhi oo intaas dheeri kuusii ah then Caasho waxay ku jawaabtay no doctor maya Dictore then dhakhtarka muxuu yidhi let me do a quick physical checkup aan kuu sameeyo yidhi physical checkup oo quick ah physical checkup maxaa ka mid ah qofka in la saaro bahalka dhagaha la gashanayay blood pressure-ka la cabiro waxyaabahaas la yidhaha physical checkup wixii kale soo raaca waa wax kale oo macnaha chemical iyo waxay noqon karaan mechanical ama wax machine la isticmaalayo then doctor wuxuu yidhi please take a deep breath neefta gudaha u qaado yidhi soo dhakhtarka markuu kaa saaray feeraha raajada ama xalli jiri bahalka dhagaha la gashto oo stethoscope-ka neefta gudaha u qaado ku leeyahay kadib neeftaada celi soo wuxuu ku leeyahay please take a deep breath gudaha neefta u qaado ku yidhi deep breath hold your breath cabaar celi and exhale kadib neefso kor u jiid neefta kadib soo neefso so deep breath waxaa lahaa neefta inaad gudaha u qaadato hold your breath waxaa la yidhahaa inaad neefta hayso celiso kadib wuxuu ku leeyahay exhale waa neefta inaad sii dayso aad celinaysay kadib muxuu ku yidhi do it again ku celi mar kale then dhakhtarka wuxuu yidhi were there any changes in your diet or your weight lately wax isbeddel miyaa ku yimaado yidhi diet cunadaada ama quudashadaada or your weight ama miisaankaaga xilliyada hadda lasoo dhaafay then Caasho waxay tiri I ate the usual thing yani waxaan cunaa sida caadiga ahayd ama waxyaabihii caadiga ahaa but I lost 5 pound recently yani laakiin waxaa iga degay tiri 5 pound recently xilliga lagu guda jiro ama muddo kooban ama muddada lasoo dhaafay dhakhtarka wuxuu yidhi do you suffer from insomnia ma waxaad isku aragto yidhi ama aad leedahay insomnia suffer waa macnaha qofka inuu shay suffer gareeto suffer yani shay inuu kugu dhac maanta ama uu ku haleelo ama ku asiibo insomnia marka waxaa la yidhaha hurdo la'aanta insomnia waa hurdo la'aan qofkii hurdo la'aan ku dhacdo then Caasho waxay tiri well it is pretty hard for me to fall asleep yani in badan aad ay ugu adagtay tiri in aniga aan seexdo when I go to bed xilliga sariirta aan tago in aan seexdo aad ay ugu adag tahay
I also woke up many times during the night. sidaas waxaa ii sidheeri tiri inaan soo kaca marar badan ama marar isdaba joog ah habeenkii inta aan jiifo. kadib wuxuu yidhi do you smoke? ma waxaad cabtaa wax sigaar ah? do you smoke? waxay tiri no. okay, how are things at work? ka warnuu yidhi shaqada xaaladeeda say tahay. macnaha waxyaabo badan uu ka baaray ama stress iyo waxyaabo nooca jiraan uu leeyahay. caasha waxay tiri there was a change of ownership 3 months ago. يعني waxyaabo isbedel ayaa jiray tiri dhanka shaqaalaysiinta muddo la soo dhaafay ownership ama lahaanshada qofka booska uu u joogo. and I had to work a lot of overtime. okay, there was a change of ownership 3 months ago and I had to work a lot of overtime. يعني waxay igu kaliftay tiri mid ayada inaan waqtiyo dheeri aan shaqeeyo overtime even during the weekend, iyadoo xitaa weliba ay tahay xilliyada maalmaha usbuuca, macnaha usbuuca dhammaadkiisa oo aan nasiinada lahaa. dhakhtarka wuxuu yidhi it looks like you have a pneumonia. ereyga pneumonia waxay ii muuqataa inaad leedahay pneumonia. pneumonia waxaa lahaa burkito. okay, ereyga pneumonia waa burkito. other than that, intaas marka laga soo gudbiyo yidhi intaan ahayn I do not see any problem. wax kale oo dhibaato kuguma arko yidhi ama kaagama jeedo. you are probably under stress from changes at work. laakiin waxaa kugu furan uu kaa dareeminaa yidhi inuu stress uu ku hayo kaas oo kaaga imaanayo xagga shaqada. and the stress causes headache. stresskana waxuu cause gareeyo ama isku buuqsanaanta ama isku buuq farada badan waxuu keenaa headache, madax xanuun, upset stomach, caloosha oo ku qasanto, and sleeplessness. sleeplessness waxaa la yidhahaa hurdo la'aanta. sleeplessness, hurdo la'aanta. for now, try to relax and exercise. hadda laakiin waxaan kugu caawinayaa inaad isku daydo ama aan kaala talinaya try to relax. isku dayo inaad relax gareyso ama nasato iyo aan exercise aan aalimindayso. it may solve your problem. waxaa laga yaabaa inay solve gareyso ama ay xaliso your problemaatkada ama dhibaatada ku haysato. come back to see me again if the symptoms persist. igu soo noqo yidhi haddii lacala astaamaha ama xanuunada ay kugu sii ziyaadaan. and I will do further test. waxaan sameynayaa baaritaan dheeri ah. father, ereyga father FURTER waa dheeri. okay, I am going to give you a prescription for your pneumonia. waxaan ku siinayaa yidhi prescription ama inaan daawo kugu qoro pneumoniada ama burkitada. are you allergic to medication? wax yani ma xasaasimaad ku qabtaa yidhi daawooyinka. allergy waa xasaasiyada. are you allergic to medication? de waxay tiri not to my knowledge. aniga inta aan ogahay ama cilmi aan u hayo mayay tiri wax aan kala kulmi jiray ma lahan. okay, qaybta soo hartay this is the last part. then dhakhtarka wuxuu yidhi asoo hadalkiisii wato okay, take this medication. qaado yidhi daawadan 3 times a day. 3 jeer maalinkii after you eat. markii aad cunada cunto kadib. also I want you to have some blood test. waxaan u baahan yidhi inaad dhiig iska sii qaado. inaad iska qaado dhiig inta aadan bixin. macnaha stop by the laboratory sii mara on your way out markaad sii baxayso and have the nurse draw your blood. nurse-kana waxaad ku tiraa yidhi inay dhiig kaa qaado. then caasho waxay tiri I am anxious to know my cholesterol level. waxaan aad ugu bukaay tiri aan u xiiso qabaa maan jecla inaan ogaado cholesterol levelkayga ama xeerka dufinka inta uu marayo jirkayga. when will I get the result of the blood test? goormaan helaya tiri natiijada. result waa natiijada oo blood testiga ama dhiigga laga qaaday ama dhiigga shaybaarka. then dhakhtarku wuxuu yidhi the results will be available in 2 weeks. resultiga ama natiijada will be available waxaa la helayaa ama diyaar noqonayaan in 2 weeks 2 usbuuc gudahood. don't stress yourself. ha isku murjinno yidhi I think everything will be okay. waxaan rajaynayaa ama aan rajaynayaa inay yani everything ama wax walba ay okay noqon doonaan. then caasha waxay tiri thank you doctor. mahadsanid doctore. that will be the end of the conversation. tani kuna dad xiiso leh fadlan nagula wadaag qaybta commentiga wax yar ama 5 erey oo kugu cusub oo ka baratay ama aad ka faa'iiday conversation-kan. nagula wadaag qaybta commentiga. aad iyo aad u mahadsantahay baan kaaga mahad celinayna booqashada ama subscription-ka aad nagu xiran tahay. haddii subscription uu ku saaran yahay fadlan aad u mahadsantahay. haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar si yacni aysan ku dhaafin casharada aan soo gelino ee aad ku xisaab badan adigana ay ku caawiyaan anagana dhiirigelin lagu noqoto. asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu.